Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay noo socday koorskeena Introduction to AWS, koorskii freega ahaa. Koorskeena paidka ahaa arday badan baa la soo hadashay, isaga waan soo wadaa. Haddii aad doonaysid AWS inaad si wacan u fahamto koorska u diyaar garow. Waxyaabo badan oo aan halkan kaga tegay oo aan waqtigii saamaxin baa xagga ku lafa gureynaa. Marka maanta cashirkeena haddii aan eegno, waxaan doonaynaa inaan ka hadalno qaybta la yidhahdo AWS walkthrough, oo aan doonaya inaan bal isdhex taagno AWS services kuu bixiyo inagoo mid walba sharaxaad ka bixinayno inta inaga naquseynaysa. Sidaan hore kugu sheegana AWS wuxuu leeyahay qaybo aad u badan oo adigu u baahnayn iminka inaad waqti ku lumiso. Marka waxaan isku dayi doonaa inaan aniga xoog ka saaro waxyaabaha u baahan. Markaa gelayso waxaad furaysaa aws.amazon.com. kadib waxaad taaban doontaa halkaa ay ku qoran tahay sign in. kadibna wuxuu ku keeni doonaa qaybtii loginka. waxaad dooran doontaa root user, kadibna emailkaaga geli next day. markaa intaa wixii ka dambeeya wuxuu ku weydiin doonaa passwordkaaga u samaysata markii. kadib passwordkaaga geli. So let's go. mar walba doonaysa AWS inaad gashano waa inaad intaa soo martaa. kadib markuu noo soo baxo waxaad arki doontaa consoleka dashboardkiisa ama console home. halkan waxaad ku arki doontaa waxyaabihii u dambeeyaad booqatay. inaga cashirkeenii kan ka horeeyay waxaan booqanay EC2 iyo Lightsail. haddii aad meelo kala booqato halkan buu kusoo dhigaya. qaabka AWS u shaqeyn waxaa weeye asaga lacagta misaa markay lacag noqoto lacagtiisu waxaa weeye pay as you go. wixii aad isticmaashay unbuu lacagteeda kaa qaadaya. ma ku dhahayo lacagtaasi hormari, ma ku dhahayo lacagta intaas baa laga doonaya lacag go-an weye. laakiin wuxuu ku dhahayaa serviceska isticmaashay intay leeyihiin unbaa lagu xisaabinaya. marka waxyaabaha aan aadka aan u jeclaadan waxaa ka mid ah AWS qofka beginnerka ku cusub wuxuu siinayaa inuu soo dhaweeyo oo ku ogolaado waxyaabo badan oo free inaad si isticmaasho si aad ula qabsato. marka halkaa markaad joogto waxaan doonaynaa inta aan isdul taagno qaybtan halkaas sare noogay. qaybtan waxaa la yidhahdaa build a solution. halkan wuxuu kuu sheegayaa anoo cusub ahay because akoonkan mar dhawaan sameynay. wuxuu doonayaa inuu caawiyo sidaan u geli lahaa AWS. wuxuu rabaa inuu tuso waxyaabaha qofka cusub uu u baahan karo. marka halkan wuxuu ku dhahayaa launch a virtual machine with EC2. wuxuu ku dhahayaa sameyso virtual machine adigoo isticmaalaya EC2. EC2 waa qaybta ugu weyn ee AWS ay iibiso. waana computerada virtualka ama serverska dadka ka kareeyaan. wuxuu ku leeyahay ku qaadanaysa 2 minutes inaad sameysato computer virtual, which is very quick. wuxuu ku tusinayaa inay aad u sahlan tahay in AWS wax ka sameyso. qaybtan kale wuxuu ku leeyahay start a development project adigoo isticmaalaya CodeStar. kan wuxuu ku dhahayaa sameyso Internet of Things markaad doonaysid inaad home automation waxyaabaha sameyso oo Alexa iyo waxaa ku xirto. waxaad isticmaalaysaa AWS IoT. haddii aad doonaysid inaad sameysatona virtual servers adigoo isticmaalaya Lightsail. so labadan aad bay isugu dhaweyn. kaas waa virtual machine, kan waa virtual server. inaga marka kan baan isticmaali doonaa Lightsail oo ah qaybta virtual serverska ama VPS-ka. very simple na aadna u sahlan. haddii aad doonaysid inaad website static ah sameysato oo one page oo kale ah waxaad isticmaali kartaa service-ka la yidhaahdo AWS Amplify Console oo isagan loogu talagalay website static in lagu host gareeyo. sidoo kale haddii aad doonaysid inaad domain name register garaysatan waxaad isticmaali doontaa hal road 53 iyo kuwa kale. haddii doonaysid inaad isticmaasho serverless microservice waxay isticmaalaysaa API gateway-ga qaybta la yiraahdo lambda wax la leeyihiin oo loogu talagalay serverless in la deploy gareeyo, just like Heroku oo kale way kaas qofka isticmaalaya yaqaan. haddii aad doonaysid inaad AWS soo rarto oo aad xaggan keensato AWS kale oo lahaan jirtan halkan baa galaysa. so qaybtan waxa weeye sharaxaad laga siinayo si aad u fahamto AWS-kii qaabka uu shaqeeyo. so waxbaa lagu tusinayaa bilowga hore. inaga marka maxaan uga baahannahay intaan hadda hawsha ugu badan qaban doono waxay ku dhex jirtaa intaan. inaga waxaan u baahannahay qaybta la yiraahdo Lightsail-ka oo aan serverska ka sameysan doono iyo qaybtan kale oo la yiraahdo road 53 oo domain name-kan kaga xiri doono. labadaas baa ugu muhiimsan, labadaas isticmaali doono.
iyo haddii wax kala soo raacaan tusaalahaan haddii aan u baahanaa inaan SSH aan dhahay SSL oo aan HTTPS ka dhigayno ayadana qayb kalaa jirto oo loogu talagalay SSL-ka in lagu xidho inay taa noo soo raacdaa laga yaabaa. Marka intan waa inta ugu muhiimsan AWS-ka uu sameeyo markaad doonaysid inaad website sameyso. qaybo kaloo badan baa jira oo ka mid ah CDN-kii oo aad website-kaaga DDoS-ka u ilaalin karto inaad ku xirto, isagana waa lacag. CDN-kooda qayb kale waxaa jirta Amazon S3 haddaad doonaysid inaad cashar iyo wax bixiso oo ku host garaysan kartaa videos halkaa, kadib waxaad ku xiri kartaa website-kaaga si muuqaala halkaa loogu soo akhristo. waana raqiis weytaa marka loo eego Vimeo iyo shirkadaha kale bixiya video hostingka, laakiin kan waxaa u baahan doontaa inaad adigu manage garaysato oo waxaa meesha ka baxaya managementigii iyo caawimaadii lagu siinay xoogaa shaqada kugu badanayso. intan waa marka inta ugu muhiimsan. haddii aan doonayn waxaan samayn karnaa inaan halkaan tagno kadib aan dhahno all surfaceska. marka 95% aan ma garanayo surfaceska meesha ku yaala, weligeena ma isticmaalin. taas waxay ku tusinaysaa inaad qasab ahayn markaad doonaysid inaad barato AWS-ka. ma u baahnid wax walba inaad baratid, waxa u baahan tahay inta adiga doonaysid inaad isticmaasho inaad ka barato, qasab ma ahan. xaraf bay u kala dhigeen iminka. xarafka intaas buu leeyahay. waxaa jirta Alexa for business oo loogu talagalay. Alexa waxaa weeye waxa la yiraahdo waxay dhahaan personal assistant-ka uu leeyahay Amazon, waa sida Google Assistant ama Siri oo kale aad ku xiri kartid alaab barnaamijyadaada. AWS Amplify waa tii markii dhow arkeen in loogu talagalay in lagu hosti karayo static websites-ka. API gateway-gan isagana waxaa weeye kii serverless-ka. haddii aad socoto kuwan kalena waa qaar kale. Certificate Manager kan waa kii aan sheegay haddii aan u baahano waxaa lagu talagalay SSL certificates in lagu deploy gareeyo. AWS chatbot baa jiro loogu talagalay inaad chatbotska lagu sameeyo. Cloud9 kan isagana waxaa weeye IDE online oo loogu talagalay in codeska lagu qoro. CloudFront isagana waxaa weeye CDN-ka idin sheegay content delivery network-ka. kan wuxuu ka caawinayaa website-kaaga haddaad diidaysid in laga hacking gareeyo oo DDoS attack lagugu sameeyo isticmaali kartaa. so AWS waxaa weeye sky is the limit way. inta surface ay bixiyaan aad bay u fara badan yihiin. marka qaybtan waa qaybta EC2-ga, EC2 image builder. kan waxaa awood u leedahay inaad adigu custom operating system aad ku upload garaysato aad ku shubato. Beanstalk baa jira isagana loogu talagalo applicationska lagu manage gareeyo. so I hope intaana fahamteen. ma doonayn inaan idinku wareeriyo waxyaabaha u baahneenina. inaga hawsheena waxa ugu muhiimsan waxaa weeye inaan tan isticmaalno Route 53-ga iyo Lightsail-ka labada inaan isku xirno kadibna aan sameyno website shaqeynayo. idinkuna ay fahamtaan qaab kale iskugu diiwaangeliyo AWS iyo waxyaabaha kaga faa'iideysan kartaan. so I hope casharkan waxaan ugu talagalnay AWS inaan ku yara dul marno. haddii aad doonaysid inaad AWS si faahfaahsan u baratana qayb halkan waxaa jirta la dhaho halkan keenso qayb loogu talagalay traininada oo free ah oo aad ku baran kartid. casharo badan ay bixiyaan baa jira AWS. haddii iminka aan furno wuxuuna geyn doonaa qaybtii wax lagu baranayay. marka haddaa English ka fahamsantahay xaggan oo aad doonaysid inaad si deeply u barato casharadan waa qaadan kartaa. waa free way enroll baad oranaysaa kadibna waa baran kartaa. durationka 6 saac buu soconaya hadda course-kan. waxyaaba badan uu kugu tusin doonaa. waa si general laakiinse wuxuu u baahan yahay inaad waxyaaba badan oo general ahaan security, networking, qaabka u shaqeynayo inuu ku baro. so I hope this course casharka inaad ka faa'iidaysateen. marka aad baan idin salaamayaa. maalintiin ha wacnaato. iskuna daya inaad dhamaystirtaan sign up-ka halkaan soo gaartaan hadduu la yiraahdo. casharkeena ku xiga insha Allah waxaan bilaaban doonaa shaqadeennii ahayd inaan dhisno website-ka. so bye bye.